السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة iyo kulanti wanaagsan. Maantay waxaan ka hadlaynaa sheekada aadka adduunka looga hadalhayay bilihii la soo dhaafay, maalmihii la soo dhaafay. Sheekadaas waxay ahayd ninka loo yaqaan Mukhtaar Roobow Abu Mansuur. marka wax yar oo brief ah ama kooban oo ku saabsan Abu Mansuur Roobow sida la sheegay wuxuu ku dhashay magaalada Xudur bishii Oktoobar 1969 wuxuu wax ku bartay tuuladaas Xudur magaaladaas xaggaas ayuu quraanka iyo shariicada islaamka iyo masaajidada ka raacan jiray markii dawladda Soomaaliya ay dhacday 1991 waxaa la sheegay in uu u safray dhinacaas iyo Suudaan oo Islamic law ama shariica islaamiya uu ka bartay jaamacad ku taal wadanka Suudaan magaalada Khartoum. sheekada xiisaha leh ayaa waxay tahay Abu Mansuur in uu ku biiray uu tagay sidoo asoo afkiisa uu ka qirtay xilli uu joogay magaalada Afgooye ee Soomaaliya ururkii la oran jiray Al-Qaacida oo ka dagaalami jiray Afghanistan inuu la kulmay ninkii Osama bin Laden la oran jiray inuu la kulmay ayuu sheegay Al-Shabaab ayay aasaaseen asaga iyo rag kamida aadan xaashi cayrow iyo asaga iyo Ibrahim Afqaan iyo rag la oran jiray Al-Shabaab ayay aasaaseen Al-Shabaab cidna maysan aqoon waxay soo caanbaxeen ka bacdi markii maxaakiimta islaamiga ay dagaal kula wareegtay magaalada Muqdisho sida la sheegay 2008 2007 abaarihii xiliyadaas ay awoodoodii ugu badnay ay soo baxday ciidamada Itoobiyaanka ay kula dagaalameen waxayna sheeganayeen mar walba in ay u dagaalamayeen jihaad iyo aqeeda islaamiyo la saxayo iyo islaamka oo wax lagu xukumayo laakiin run ahaantii waxay u muuqataa ama runtu tahay in ay political issue ay ahayd waxoodu oo ajenda siyaasadeed ayaa ka dameeyay dagaalkooda iyo in ay xoog meesha ay ku qabsadaan in ay xoog wax ku maamulaan in toodu ay socoto bay rabeen qarxii ka dhacay hotel Shamow 2009 oo dad badan oo arday ah lagu dilay dad wasiirro dawladda Soomaaliya xilligaas ka ah lagu dilay dad aqoon-yahano ah lagu dilay urka Al-Shabaab way sheegteen Abu Mansuur Roobowna afkiisa ayuu ka qirtay in ay ka dameeyeen qarxaas marka waxaa dhacday in Al-Shabaab dhexdooda ay islaayeen 2015 dad badan ayagu iska dileen hogaamiyahoodii weynaa diyaarad Mareykanku ay ku duqeysay koonfurta Soomaaliya lagu dilay marka xilli 2017 ayuu wuxuu ka soo fakaday Al-Shabaab naftiisu la soo cararay ka bacdi markii ay isku afgaran waayeen si xogo u dhow ay sheegeen sida loo maamulayo gobolada qabiilkiisa uu dago oo koonfur galbeed loo yaqaan Soomaaliya marka halkaas ayuu khilaaf ugu weyn uu ka dhashay marka dawladda Soomaaliya ayuu isku soo dhiibay xilligii madaxweyne Farmaajo laakiin khaladka uu sameeyay waxay ahayd oo ugu weynaa ninkan markuu uu soo dhiibay in aan la maxkamadayn awal dawladda Mareykanku 5 milyan ayay madaxiisa saartay oo ninkii soo sheega ama dilah ama war ka keena ama gacan ka geysta in la qabto 5 milyan oo dollar ayaa abaalmarin loo siinayaa laakiin dawladdii madaxweyne Farmaajo ayaa waxay sameysay ninkan markuu soo dhiibay dawladda Mareykanka ay la xiriirtay in lacagtaas laga qaado madaxiisa wasaaradda arrimaha dawladda Mareykanka iyo waxa weeye iyo dadkii raadinayaba way ka qaadeen lacagtii ninkan markuu soo dhiibay
laba mid bay ahayd in la cafiyo oo si public ah oo si uu u sheego khaladkiisii cafis dadkii weydiisto dowladuna cafiso maxkamad cafiso ama maxkamad la geeyo maxkamaddu ama dambi ku xukunto ama cafiso wadada saxda saas ahayd laakiin farmaajo saas muusan samayn farmaajo wuxuu saaxiib la ahaa ninkii markaas koonfur galbeed Soomaaliya haystay haddana weli haysta lafta gareen ninka la dhahayo ay ninkan is hayeen marka waa la xiray marka ninkii Abu Mansuur Roobow xabsi baa lagu tuuray 2018 ilaa barigaasna wuu xirnaa maxkamad lama soo saarin wuu iska xirnaa marka waxaa dhacday tii ugu darneed waxay ahayd markii Xasan Sheekh Maxamuud 15 bishii May 2022 uu ku guuleystay ayaa si lama filaan ah uu ninkii dadka shalay leynayay ururka argixisada nabadiidka Soomaalidiidka ah jihaad wax sheeganayay isku sheegay ayuu wasiir u magacaabay wasiirka diinta iyo cadaaladda wasiirka diinta iyo awqaafta